And John Hamilton asked me the question, what is the most important thing that people should know about you? And my answer was simply that I have a very happy life. Thank you. assalaamu calaykum walaalayaal muuqaalkeennan maanta waa muuqaal aynu qaab dokumentari ahaana ugaga warrami doono taariikh nololeedka wiil aynu ku tilmaami karno inuu ahaa halgamaa marka loo eego sida ay noloshiisu u ekayd iyo sida aanu dan iyo heella toona uga geli jirin halgankiisa nololeedna u sii wadan jiray waa wiil uu ku dhacay oo la noolaa cudur dunida naadir ku ah magaciisana waxaa la odhan jiray Sam Berners. waxaynu sidoo kale muuqaalkan ku arki doonaa qisada gabadh kale oo Hayley la odhan jiray oo ay aad isu soo shabahaan qisada Sam Berners marka loo eego halgankoodii nololeed. ku soo dhawow daawada muuqaalka wixii dhiirigelin iyo talo iyo tusaale ahna ha naga ilaawin. magaciisa oo dhammaystiran waxaa la odhan jiray Samson Gordon Berners. waxa uu dhashay 23 Oktoobar 1996. hooyadii waxaa la odhan jiray Leslie Gordon, aabihiina Scott Berners. Sam Berners waxaa ku dhacay cudurka progeria bishii August 1998 isagoo markaas jiray 22 bilood oo keliya. progeria waa cudur ku dhaca hidde-sidayaasha oo sababa inuu qofku cimri degdego. qofka uu ku dhacana waxa uu isagoo ilmo yara u muuqdaa sidii qof waayeel ah oo aad u da'weyn oo kale. sidan imikaba Sam wejigiisa idinka muuqata ma u malaynaysaa in sawirkani yahay wiil yar oo dhowr iyo 10 sano jira daawade. progeria waa cudur dunida naadir ku ah oo ay aad u yar yihiin dadka uu ku dhacaa. qiyaas ahaanna waxaa la sheegaa in 40 milyan ee carruur ahba mid ka mida uu xanuunkani ku dhaco. tirada dadka maanta la nool xanuunkanina waa wax ka yar 200 oo qof guud ahaan dunida oo dhan sida ay baadhitaanadu xusayaan. carruurta uu xanuunkani ku dhacaana waxa ay u dhintaan inta badan cudurro ka haleela wadnaha iyo xididada jirkooda, waxaanay celcelis ahaan noolaadaan carruurta uu cudurkani haleelo 13 sano oo keliya. qisada Sam ayaynu si toos ah u geli doonaa. Sam waxa uu xanuunkani haleelay isagoo aad u da'yar oo jira 22 bilood oo keliya. hooyadii iyo aabihiina kama aysan quusan noloshiisa, dhiirigelintiisa iyo garab taagnaantiisa. markii ay waayeen daawo iska dhaafay xataa cid si buuxda ugu faahfaahaysa xanuunkanna, waxa ay sameeyeen cilmi baadhisyo iyo dadaallo aad u fara badan oo ay rabeen in ay xanuunkan wiilkooda haleelay kula tacaalaan. iyadoo hooyadii sanadkii 2003 bilowday cilmi baadhis ay rabtay inay xanuunka wiilkeeda haleelay dawo ugu raadiso, maadaama oo ay ahayd iyaduba aqoon-yahanad caafimaad. waxay dadaal wadana Leslie Gordon, Sam hooyadii, waxa ay soo sheegtay inay ogaadeen waxa sababa cudurkan iyagoo sameeyay daawo tijaabo ah. waxayna noqotay markii u horeysay ee cudurkan daawo uu leeyahay la soo saaro. waxayna bilaabeen tijaabin caafimaad, balse kuma aysan guulaysan inay xanuunkan daawo u helaan. marka laga reebo in xoogaa 50% uu miisaankoodu koray, carruur la siinayay muddo 2 sano ah daawadan tijaabada ah ee ay soo saareen Leslie iyo xirteedu. inkastoo maalinkii taariikhdu ahayd 10 January 2014 uu Sam Berners oo 17 jir ahi u geeriyooday xanuunkan progeria, haddana waxaa lagu xasuusan doonaa ahna mid ka soocaysa carruuraha sidiisoo kale xanuunkani ku dhaco inuu si weyn uga qayb qaatay wacyigelinta xanuunkan aan daawada loo hayn. waxa uuna soo bandhigi jiray khibradiisa ku saabsan la noolaanshaha cudurkan, isagoo jeediyey khudbado qiiro leh oo ay ka mid ahayd khudbaddii uu ka jeediyey TED Talk. khudbadan oo uu Sam ku soo casuumay Francis Collins
oo ahaa agaasimaha machadyada waddanka Maraykanka ayuu Sam ka jeediyay khudbad malaayiin qof ka qiiraysiisay, waxaana muuqaalkiisa channelka Telegraph Media lagu baahiyay la daawaday in ka badan 46 milyan oo jeer. waxyaabaha kale oo uu Sam Berners sababay waxaa ka mid ah inuu cudurkan oo aanu caalamku war ka hayn uu xaqiiqdiisa soo bandhigay, taasina ay keentay in khubaro caafimaad oo aad u badani isku hawleen darsidda iyo daawo raadinta cudurkan. si kasta oo uu daciif u ahaa Sam, waxbarashadiisa marnaba kama tegin, waxaana ka caawin jiray waxbarashada qalab si gaar ah loogu farsameeyay. waxa kale oo uu ahaa durbaan garaace, mararka qaar ka soo muuqan jiray xafladaha gaarka. Sam keligii maaha dadka cudurkani ku dhacay ee dunida kaga yaabsaday adkaysigooda iyo ku dhiirashada sii wadista halgankooda nololeed. waxa kale oo jirta gabadh la odhan jiray Hayley O'Connor oo u dhalatay Ingiriiska, noqotayna qoraa intii yarayd ee ay noolayd, sidoo kalena waqti badan ku bixisay door weynna ka qaadatay dhisidda wacyiga bulshada ee ku aadan cudurkan. inkasta oo ay Hayley O'Connor dhakhaatiirteedu u sheegi jireen in ay dhiman doonto marka ay 13 jir gaadho, haddana taasi ma dhicin oo waxa ay ka dambeysay waqtiga dhakhaatiirtu u cayimeen muddo 4 sano ah, iyadoo u dhimatay cudurkan 2 Abriil sanadkii 2015 iyadoo 17 sano jir ah. Sam Berners isaga waxaa laga sameeyay filim documentary ah oo ka mid noqday 15 filim documentary ee ku guuleystay jaa'isadda Oscar. filimka magaciisana waxaa la dhahaa Life According to Sam, oo ciddii rabta internetka ayay ka helaysaa. muuqaalkeenan maanta inahan ayuu ku eeg yahay. haddii aadan weli nagu soo biirina waxaan kaa codsan lahaa daawade inaad nagu soo biirto adigoo subscribe saaraya channelka si ay annagana dhiirigelin ugu noqoto. sidaas iyo salaamullaahi calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatuh.